waa 10 sabab oo inta badan dadka shaqaalaha markii shaqada ay ka tagayaan ay sabab ka dhigaan loona baahan yahay qof kasta oo maamulih ama manager inuu runtii la socdo shaqaalihiisa haddii 10 ka mid kamid meesha uu ka jiro waa inuu runtii ka ilaaliyaa shaqaalaha dawada 10 kaashi koowaad wuxuu noqonayaa qofka shaqaalihi hadduu arko shaqadan uu qabanaya inaanu jeclayn haddii qofka shaqaale uu jeclaan waayo shaqadan uu ka shaqaynayo oo passion haddii la waayo xamaasad iyo jacayl uu u qabo shaqada haddii qofka shaqaalaha laga waayo oo jacaylkaasi ama xamaasadaasi meesha ay ka baxdo waxay u dhowdahay qofka shaqaalihi inuu ku fakiro inuu meesha ka bedesho daawada dadku marka ay ka shaqeynayaan shaqo ay jecel yihiin passion ay u leeyihiin xamaasad ay u hayaan kama daalaan laakiinse qofka haddaanu shaqadan uu ka shaqeynaya aanu jeclayn oonu runtii naftiisu aanay ka helayn markiiba runtii waxaa soo galaya caajis markiiba waxaa soo karaahiye ayaa soo galaysa shaqada uu jecel yahay uu necab yahay markiiba waxaa soo galaysa shaqada inuu ka tago inuu ku fakero marka calaamada koowaad ama sababka koowaad shaqaaluhu ay shaqada uga tagaan waxa weeye iyagoo shaqada aan jeclayn sababka labaad dawada waxa weeye shaqadan uu qofku ka shaqaynayo iyadoo aan runtii buuxin qofkan valueskiisii qiyamkiisii iyo ahdaaftiisii haddii shaqadaasi buuxin weydana qofku shaqada uu ka tagaa isagoo shaqo fiican qofku haysta oo lacag fiican qaata haddana hadduu arko shaqadan qiyamkiisa inay ka soo horjeedo mabaadidiisa noloshan uu ka leeyahay inay ka soo horjeedo ahdaaftii isla xaqiiji inaanay shaqadan aanay gaadhsiineen hadduu qofku shaqalu taa ogaadana oo uu yaqiinsadana wuxuu ku fakiraa shaqadan siduu uga bedelan lahaa marka iyaduna waa sabab keentaa qofku runtii shaqada inaanu kusii raagin markuu arko qiyamkiisa inay duminayso oo shaqadu ay dhib u keenayso qofkaasi shaqada uu ka bedelanaya dawada sababka saddexaad waxa weeyaan ay keenay qofka shaqada inuu ka tago waa qofkan shaqaalaha ah oo runtii ogaada ama dareema shaqadan inaanay kor u qaadin xagga aqoontiisii iyo khibradiisii iyo kartidiisii hadduu arko inaanay shaqadan faa'iidaba u lahayn oonay kor u qaadin qofkaa shaqaale wuxuu ku fakerayaa shaqada inuu ka tago oo uu ka bedesho marka shaqadu noqoto mid uu ogaado inuu wax uga dambeeya aana jirin oo already wax khibradoo dambe uu ka faa'iidaya aana jirin aqoon u kordhaysa aana jirin macluumaad dambe uu helaya aana jirin tababarray wax kale uu ka helaya aana jirin aqoontiisu aanay ku dhismayn halkaa uu taagnaanayo qofkaasi wuxuu oranayaa war shaqadan mid kaaga fiican ood kor uga kacdo ood khibrad ka hesho ood aqoon ka hesho raadso buu oranayaa shaqada inuu ka bedesho ayuu badnaanaysa daawada qodobka afaraad ama sababka afaraad ee keena qofka shaqaalay shaqadiisa inuu iskaga tago waxa weeyaan waa qofkan shaqaalaha ah oo uu maamulayo maamule aada u adag aada u qalafsan runtii aanu qofkan jeclayn hadduu maamulayo qofkan shaqaale uu noqdo maamule aada u xun oo qalafsan oo qalbi adag oo naxariis lahayn oon shaqaalaha u wanaagsanayn oo runtii dhib badan ay kala kulmayaan qofkan runtii muxuu ahaay shaqaale wuxuu ka fakirayaa inuu shaqada ka tago bale waxaa jira tusaalaa jira ama waxay yidhahdaan xikmad tiraahdaa qofku shaqada ugamuu tegin shaqo ahaane wuxuu uga tegay ninka maamulaha ah marka waa waxyaalaha looga tago shaqada markuu qofkii maamulaha kugu xumaado qodobka shanaad ee shaqada looga tagaa waxa weeyaan qofkii shaqaalaha oo shaqadu ay ku noqotay daqad iyo runtii muxuu ahaaye wax ku keena dhib ku keena caafimaadkiisa hadday shaqanu noqoto qofkii runtii shaqaalaha culays ku noqoto culays ku keenaya caafimaadkiisa inuu wax yeelo hadday taasi timaadana qofkii shaqaalaha shaqada wuxuu ku fakiraya inuu ka tago oo markuu arko hadduu shaqadan sii wado oo uu kusii dhex jiro inay caafimaadkiisa ay dhib u keeni karto qofkii shaqaalay markaa wuxuu oranaya shaqadan iskaga tago waana arrimaha keena qofku runtii inuu shaqada ka tago haddii goobta uu ka shaqaynayo iyo meesha uu ka shaqaynayo ay caafimaadkiisa wax yeelayso oo daqad weyn ay ku hayso wuxuu ku fakirayaa inuu ka tago shaqada
daawada qodobada aadka u muhiimka asbaabta u muhiimka shaqada laga tago waxa ka mid ah oo runtii waxyaalaha keena qofkii shaqadan ka tago waxa ka mid ah qofkii shaqaalaha ahaa oo runtii ogaada shaqadan inay runtii dhib u keenayso reerkiisii iyo asxaabtiisii inuu runtii waqti la qaato oo uu la sheekaysto oo la raaxaysto hadday shaqadu noqoto mid dhib u keenta oo ka hor istaagtaa qofkii markaa wuxuu ku fakarayaa shaqadan siduu uga tagi lahaa haddii qofkii isagii xaaskiisii la kala kaxeeyo oo meeshan uu ka shaqeynaya xaaskiisii ay ka fog tahay oonu waqti u helayn uu la fadhiisto ciyaalkiisa oonu waqti u helayn uu reerkiisa la fadhiisto qofkaas markaa wuxuu ku fakarayaa war shaqadan iskaga tago meel reerkaaga iyo xaaskaaga iyo carruurtaada aada la joogto u wareeg buu is oranaya marka waa asbaabaha keena qofka oo runtii u waaya waqti uu la qaato reerkiisa iyo asxaabtiisa iyo qoyskiisa waa asbaabaha keena qofku shaqada uu ka bedesho asbaabaha keena qofku shaqada inuu ka bedesho daawada waxaa ka mid ah qofkii shaqaalaha ahaa oo ogaada meeshan creativity inaan loogaba baahnaynba qofkii shaqalo ogaada meeshan inaanu fikirku soo jeediy cidba qaadanayn fikirkiisu aanu soconayn waxba inaanu ku soo kordhin karin ibdaaciisa iyo waxyaalaha isaga ka dhex guxaya inaanu ka dhex xaqiijin karayn hadduu qofku shaqada uu ka dhex arko waa asbaabaha keena qofku shaqada inuu ka tago hadduu arko cidba inaanay tixgelinayn raygiisa fikirkiisa aan la qaadanayn fikirkiisa aanu shaqaynayn hadduu wax soo kordhiyo aan la tixgelinayn hadduu qofku taa dareemana waa waxyaalaha niyadjabka keena ee ku abuura qofka shaqaale inuu ku fakiro shaqada inuu iskaga tago daawo asbaabta kale inuu keena inuu qofku shaqada uu ka tago waxaa ka mid ah qofkii shaqaalaha ahaa oo dareemo promotionba inaanu jirinba qofkii aan la dalacsiinayninba oo weligii intaas muddo dheer buu meesha joogo wax dalacsiina muu helin oo mana soo socoto muddo dheer buu xafiis ka fadhiyaa wax weyn wax uga dambeeyo dalacsiini ma jiro promotion ma jiro qofkuna hadduu taa isna ay ku dhacdana waa waxalaakana qofku inuu isweydiiyo war shaqo kale ood promotion hesho oo tan kasii fiican oo ka sarreysa oo ka mansab sarreysa raadso ayay arrintana ay tahay waxyaalaha ku abuur qofka inuu shaqada uu ka tago asbaabaha keena shaqada inuu ka tago waxaa ka mid a qofka oo runtii waxba aanay u kordhayn xaggii dhaqaaluhu maalintii koowaad uu bilaabay ee loogu bilaabay mushaharkii loogu bilaabay ilaa hadda qaadanaya mushaharkiisii ma kordhaayo dhaqaalihiisii ma kordhaayo waxba isma bedelayaan waa arrimaha keena qofku inuu ka fakiro shaqada inuu iskaga tago oo uu raadsado shaqo uga fiican xagga mushaharka iyo dhaqaalaha daawade asbaabaha keena qofku inuu shaqada uu ka tago waxaa ka mid a runtii allahuma salli calaa maxamed keensanaya qofku inuu ka wareego shaqadaas waxaa ka mid ah qofka oo shaqadii saameynba aan ku lahayn qofku hadduu ogaado shaqadan uu qabanaya inaanay impact inaanay lahayn saameyn inaanay lahayn oonay bulshada ku lahayn oonay shaqaalaha ku lahayn oonay cid kale ku lahayn oo wax saameynaba aanu lahayn arrintaas hadday qofka shaqaalaha ku timaadana waa waxyaalaha kana qof inuu ka fakiro inuu shaqada iskaga tago maalintuu qofku shaqaaluhu dareemayo shaqadiisa inay saameyn leedahay oo mujtamaca ay wax ku soo kordhinayso inuu wax ka bedelayo runtii arrimihii bulshada inuu bulshadiisii wax la qabanayo inuu dad horumarinayo inuu arday soo saarayo inuu shaqaalaha wax u qabanayo inuu dad ka farxinayo maalintuu ogaado shaqadiisu inay saameyn leedahay uu joogaya xataa mushaharku hadduu ku yaryahay uu joogaya laakiinse markuu ogaado shaqadan uu qabanaya inaanay wax saameynan lahaynba sidii aalada birtoma u shaqaynaya wax saameynay leedahayna ma jirto qofku markaas is oranaya war shaqo saameyn la-ood wax adliis waxaad qabato waxay ummadda u tarayso u wareeg buu is oranaya arrintaasna waa arrimaha keena qofku inuu shaqadiisa iyo halkan uu ka shaqaynayo inuu ka wareego daawada 10 qodob aynu sheegnay waa 10 qodob oo runtii keensanaya qofkii allahumma salli calaa maxamed shaqaalaha ahaa inuu ku fakiro shaqada inuu ka tago laakiinse daawad mid baa kuu sheegayaaye marka aad ku fakirto inaad shaqada ka tagto markiiba ha ka tegin waxaa jira qaabab wanaagsan oo shaqada looga baxo
haddaad tirada aniga mushahar fiican ma qaato waan ka tegayaa ama dalacsiin maan helino waan ka tegayaa ama maaha meeshan runtii maxaa maamulaha isku fiicna waan ka tegayaa adiga oon qorshayaal la iman waad jabaysaa kugulama talinaayo laakiinse goortaad ka tegaysaa waa goorma waa goor qorshahaaga uu sax yahay oo dhibta kaa soo gaadhaysa haddaad ka tagto iyo haddaad ku jirto ay badan tahay dhibta kaa soo gaadhaysa haddaad ku jirto waa goor aad qorshe aad samaystay A iyo B C aad samaysatay oo haddii halkan aad ka tagto meel kale tegaysa ay jirto xaqiiqo tahay oo la hubo ma raba inta shaqada aad ka tagto inaad beri maqaaxida soo fadhiisato taa lama rabo waxaa la rabaa haddaad shaqo ka tegayso waa inaad wax reason saxa kaga tagtaa asbaabo saxa kaga tagtaa meeshaad u socotaana ay noqotaa meel ka fiican meesha haddii aad joogto dawada intaasi kusoo koobanaa wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu